waxaan rabaa madaxweyne fariinta koowaad diray waxay tahay adiga iyo xildhibaanada waa eedeysantay sharci ku kala baxa waa fariinta koowaad fariinta labaad waxaan rabaa inaan reer muqdisho u jiro maanta waxaan muqdisho daana inaan iraahno waa markii ugu dambeysay soo ayagu ma dhigi jiro waa markii ugu horeysay waa markii ugu dambeysay oo cashuurteena la dhaco waa markii ugu dambeysay oo qoray oo taliyo waa markii ugu dambeysay oo dadka la caburiyo caburi kara ma tihiin anaa inay aqaano caburis hore u jeedeen kuwa ka xoog badana ka diideen kuwa ka taangiyal iyo diyaarad badana ka diideen cid caburi kartaa ma laha waxaan dhageystay saxaafadii hor fadhisaa afayeenkii uu hadlaayay bahda saxaafadda caburin ka sheeganaya waxaan arkaa xildhibaanadii oo caburin ka sheeganaya waxa la isku cabirinayo saxa inta laga sheegay taangiga amisom la iskuma caburi karo kii Ethiopia la isku caburi waayo marka taasaan leenahay waxaan leenahay oo xildhibaanada ku taageersanahay sharafta leh mooshinkii ay keeneen madaxweyne farmaajo wax Soomaalnimo waa ka weynay qalbidayga waxa u dhiibay Soomaalnimo ma ahayn maanta waa ka jigjiga lagu soo dhaweeyaa soo sharaf leh oo dadkiisii dhex jooga waa ay soo weeraray ilmihii askarta ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu laayay wax Soomaalnimo ma aha walaalaha Djibouti ayuu ka doorbiday inuu gees geliyo oo la dagaalamo takooro Soomaalnimo ma aragno wuxuu leeyahay Soomaaliland macaawinada laga jaro Soomaalnimo ma aragno wax Soomaalinimo madaxweynaha waa ka weynay markii hore sheegay inuu Soomaali u socdo laakiin waxa leenahay madaxweyne wax Soomaali ah waa ka weynay haday tahay maamul goboleed haday tahay Somaliland haday tahay Djibouti haday tahay Ogaden iyo Soomaali galbeed meel aad Soomaali ku matasho waa leeyahay madaxweyne saas daraadeed waxaan taageersanahay hadana xisbiga wadajir mooshinka ay soo jeediyeen xildhibaanada ayaan taageersanahay